cabdikariin maxamed ayaa isaguna su'aashiisu waxay tahay diintu maxay ka qabtaa mawlidka nabiga kaleey salaatu wasalaam in loo sameeyo ihtifaalaad waayo wadamada qaar lama sameeyo ihtifaalka sida sacuudiga oo kale nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam intii uu noolaa muu sameeyay xaflad noocaas oo kala ah waqtiyadan baa la sameeyay mar walbana waxa inoo haboon sida aynu aakhire ilaahay uga nabad gallo wuxuu nabigu yeelay inaynu yeelno kaleey salaatu wasalaam آيات قرآننا إلهي وحيقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر إلهي نبي محمد كديشو ونأكسن بايدين كسوغان إفك إنت أجوكتان قفك إلهي آخرة رجيني وي إنو إلهي سرتاقي دون آخرة قفك ديارو أينو حسابتا كان نبض قلو حماننا آني لكل من كديشو ونأكسن با نبي محمد وسوغان منا أوران كرنو شيها بونا ayuu rasuulku ka tagay sallallahu alayhi wasallam oo ajrigiisa oo badnaa oo inagu aynu sameeynayna taana kuma doodi karno wax kasta oo khayr ah ina tusiyay wax kasta oo sharana uu inooga digay rasuulku sallallahu alayhi wasallam wallahu a'lam وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعا